barnaamijkan aan ku iba furno baraarugii ku dhacay suugaanta haadraawi bartamaha sagaashamaadkii markaasoo haadraawi daraasada uu sameeyey uu ku dhaaday dhabbada saxan waa london oo haadraawi wuxuu ka ladi waayey kumanaan su'aalood oo laabtiisa ku soo laalaabanaya xasuusta ayuu dib u celiyey si uu sawir uga helo bulshadii hore ee Soomaaliyeed markii uu kaydka xasuustiisa dib u daawadayna wixii uga soo baxay waa taa waxaan xusuustaa miyigo anigoo yaraa joogo oo dhibaato aan ka marnayn wax waliba ka dhaca laakiin dhibaato waliba ay xal leedahay hadday taas timaado taasaa u maara ah hadday taasi timaado taasaa u maara ah wuxuu isweydiiyey oo haddii bulshadii hore ee Soomaaliyeed wax walba xal ay u helayeen maxaa inaga dhigay kuwa baahi iyo baryo ku nool dabeedna waxaan idhi okay oo taasi oo dhibaatooyinkaasaa ka jiro xal baa mid walba loo heleeyey maxaa jira si uu weydiimaha jawaab hufan ugu helo buugaagtii barisamaadkii ayuu dib u baadhbaadhay oo suugaantiisii 30 sano ayuu dib u faaqiday markii jawaabihii uu raadinayay uu ka dhex waayeyna buugaagta iyo suugaantaasba baabkoodii ayuu laabay dabeedna markaasay ila kortay inaan dabagalo inaan iska daadiyo horta kutubtaydii iyo buugaagtaydii iyo aqoontaydii iyo kalaaskii iyo dictationkii noloshii yeedhiska ahayd mar kale ayuu dib u daawaday hayaankii noloshiisa waxaa la yaab ku noqotay in godobtiisa hadba meel laga tusayey waan xusuustaa aqoonta laysay waxa weeye dhibaatooyinkaaga mar walba meel baa lay saaraya waa dictator waa qabyaalad waa corruption waa dibudhac waa sidan mar walba godobtayda meel baa la ii saaraya yaa ii saaray qoryaha ninka waxay soo baray baaba imanka kii macallinkayguba wuxuu ahaa ninkii mashkaladayda ka mas'uulka ahaa wuxuuna eedda dusha ka saaray reer galbeedka kuwaasoo uu leeyahay waxay rabaan inay nolosha inoo yeedhiyaan haddii mashkaladaada aad raadso angalee ka eeg haddaad angalee ka weydo angalbii ka raadi haddaad angalbii ka weydo angalsii ka waa sumado laysiyadoo loogu talagalay inaan xayndaabka ka gudbin oo dhaafin waana iyaga buu yidhi kuwa boqolaal baahiyadoo beenbeen ah inoo sameeyey si ay inoo yeeshaan marka ay malaayiin dollar oo dayn ahina siiyaan waxaa laynagu furay si laynoo yeesho in baahideenna malyan baahiyood oo aynaan u baahnayn laynoo sameeyo dabeedna ka jawaabidda baahida marka awooddeenna iyo baahida laynoo sameeya isgaari waayaan ilaahdo marka hore diinta dhig dalka dhig damiirka dhig karaamada dhig sharafka dhig shimbiraha dhig ugaadha dhig dhirta dhig ciidda dhig xoolaha dhig xayawaanka dugaagga dhig wax walba dhig keen soo gal markii baahiyihii beenbeenta ahaa ee reer galbeedku inoo abuureen iyo bulshadii Soomaaliyeed ay kala badatay maxaa dhacay oo maxaynu samaynay subxaanaka yaa cadiim qofkii taasaa keentay markaa inuu tuug noqdo inaynu dahab wada raadinno inaynu emerald wada raadinno inaynu batrool wada raadinno in wax la xado in wax la boobo in marka baahideennii awooddii aynu ku kari karaynay ay baahideenni ka jawaabi kari weydii marwooyin iyo mudanayaal ku soo dhowaada qaybtii koowaad taariikhda maxamed ibraahim warsame haadraawi sannadkii salaan carabay geeriyooday ee 1943kii ayuu haadraawina ku dhashay baadiyaha burco gaar ahaan meel la yidhaahdo waxaan ku dhashay meel la yidhaahdo isku darmo miyigii asalka ahaa ee ugubaadka iyo ugaadha hodanka ku ahaa ayuu haadraawi horaantii noloshiisa ku soo qaatay isagoo aad u yaroo maqasha iyo adhiga la jooga ayuuna hibada halabuurka isku arkay si adigoo yar oo aan u malaynayo inaan maqasha raaci jiray oo nafar jirahay ayaaban beydkii ugu horreeyey ama odhaahdii ugu horraysay anoo maqal la jooga ayaaba igu soo dhacday sida haadraawi uu sheegay waxa uu goor subaxa sheedda ka arkay ayaydii iyo aayadii oo ku murmaya arrimaha dhaqaalaha qoyska murankaasoo salka ku hayay tashiilka dhaqaalaha ayuu haadraawi murtidiisii u horreeyey ka soo saaray wax dhaqo waxay kala hadlaysay lixajacada iyo tabaari tacabka wax dhaqo wax meel dhigo haddaad waana laba dhaaday intaasaan markaan istaagay igu soo dhacday ma doondoonin min allaahi tacaala marka wax hal abuur oo aan idhaahdo ereygaasa igu horreeyey kaalintiisii miyiga wuxuu ka bilaabay dhex joogga maqasha markii dambena wuxuu noqday geeljire nolosha geeljiraha intii haadraawi yaraantiisii uu ku jiray waxa uu sheegay mar isagoo xerada geela la jooga in raggii geeljirka ahaa dhammaan ay ka yaaceen
si ay u soo celiyaan buu yidhi geel wabaxa oo xeradii ka daatay. waxay goobtaana kaga tageen haadraawi iyo hal duqowday oo wabaxa oo biyihii caloosheeda ka buuxay la dhaqaaqi weyday. waa anigii hashi qaabil eeb oo biyo la kici weyday. cabbaar kadib waxaa xeradii geela soo weeraray 2 libaax oo harraadan oo dhankii hasha intay aadeen ayay dhinaca ka dalooliyeen oo kadibna cabbeen biyihii ka buuxay. dabeedna hashii weli biyihii waa ka socdaan wax weydiyada ma gaadhin weynoosho may dhimani layne biyihii unbaa ka socdaa. habeenkaas oo haadraawi 6 sanno da'diisa uu ku sheegay wuxuu ku dhuuntay meel duur ah. isagoo halkaa ku dhuumanaya ayaa waxaa goobtii timi hooyadii Kaha Jaamac oo ka badbaadisay libaaxyadii. markaasaan gartay inay hooyaday tahay oo waxaasoo libaaxa soo jiidhay halkii baan ka soo booday. dabeedna hooyaday anigoo haddii ay ka dhigo dee muskii hooyada halkii baan iga kaxaysa anigoo labadeedaa lugood dhexdooda ku jira. muddo yarse kadib hooyadii way geeriyootay isagoo haadraawi wali carruur ah. dabadna midigaasaan ku koray. waxay koriyey aabbahay iyo adeeraday. waagii dambe isaga oo geel la jooga oo rajaya ayuu aabbihii u yimi kuna wargeliyey inuu safar dheer isu diyaariyo. waxay u socdaaleen isaga iyo aabbihiiba dhanka magaalada Berbera halkaas oo ay ka raaceen markab qadiimi ah oo ku waajahan magaalada Cadan. abbay baanu isu raacnay Cadanoo adeerkayga booliiska buu ii geeyo. Cadan waagaa waxay ahayd meel aad u camiran oo bulshada dunida soo jiidatay Soomaaliduna si weyn ayay u deganayd. cadanna markaa cirkaasay maraysay kontonaadkii iyo dhexdiisii 73 markab baa maalintii soo geli jiray. markabkii sidee haadraawi markii uu marsada Cadan ku soo xidhay waxaa la geeyey guriga adeerkii oo ka mid ahaa booliiska magaalada Cadan. malcamada laygu daray waxaa haystay sheekh la odhan jiray Qaara Weyne. intuu malcamad qur-aanka haadraawi kaga jiray magaalada Cadan waxaa loo bixiyey magaca Abu Hatra oo markii la Soomaaliyeeyay haadraawi isu beddelay. ardayda qur-aanka ayuu sheeko xariirada uga sheekayn jiray. waagii dambe ayuu macallinkii malcaamadu dhibsaday sheekooyinkiisan taxanaha ee aan istaagayn ee ardaydii mashquuliyey. markaasuu ku yidhi afcabeedku ku hadla wuxuu ammaana innaka Abu Hatra waxaad tahay nin hadal badan weeye. markaasana dugsiyeedku soo xidhmo waxay ardayda Hindida Soomaalida iyo Carabtu ee Cadan ku dhaqnaa ay soo bandhigi jireen riwaayado iyo maadays gooskoos ah oo ka turjumaya hidaha iyo dhaqankooda. oo Hindigana waxay soo samayn jireen mid, Carabtana mid bay soo samayn jirtay, anigoo mid baan samayn jiray. haadraawi oo hibada hal abuurka isku tuhmayaana waxa uu qayb ka ahaa dadka iyo ciyaalka soo bandhiga riwaayadaha gooskooska ah. markaan waxaan ahaa raggii caddaaya waqtigaa riwaayada kooban ee la doonayo in la soo bandhigo raggii samayn jirayba halkaasaan ka bilaabay anigu hal abuurkayga. magaalada Cadan waxaa waagaa ku noolaa jaaliyad Soomaaliyeed oo dhaqaale iyo maskaxba ku taageeri jiray halgankii xorriyaddii 60kii lagu raadinayay. waxay kaloo ahayd Cadan meel gobonimo doonka Carbeed iyo kuwa Afrikankuba isku urursadaan oo afkaaraha gumaysidiidka la isku dhaafsado. waxaa iyana markaa bilaabantay oo iyana cirkaa maraysay xarakadii Jamal Cabdinaasir iyo midaynta carabta iyo xarakadii dhaqdhaqaaqii Soomaaliyeed oo ahaa 5 Soomaaliyeed hal la isu geeyo. dareenkii wadaniga ahaa iyo ilbaxnimadii guunka ahayd ee taalay magaalada Cadan waxay dibadda keentay hal abuurkii Maxamed Ibraahim Warsame Haadraawi kaasoo 1966kii halkaa ku soo bandhigay riwaayadiisii Hadimo ee hal abuurkiisa iba furka u noqotay. waxaa soo riwaayadaas ugu horeysay riwaayadaan sameeyo waxaa loo jeeday ninka Hadimo taliyo. markii dambe waxay la baxday Hadimo oo markii Cadan lagu dhigay markaa qoladii xabadi keentagii soo qaxay soo raacday mar labaadna waxaa lagu dhigay dalka gudihiisa. marka laba dalba isu bartay. riwaayadii Hadimo ee markii dambe masraxyada Soomaalida lagu soo bandhigay heesaha ku jiray waxaa ka mid ahaa dunidu habeena
lagu kala horeeya hantida iyo xoolaha hawayno hayna وطالب مدعسة درسوغيسي وعيه تاريسو وليقيد يدي سلمانتي xilligii riwaayadda hadima magaalada cadan lagu soo bandhigay waxaa halkaa ka taagnaa kacdoomo rabshadaysan oo 1967kii si weyn ugu faafay magaalada cadan halkaas oo ingiriisku gacanta uu ku hayay muddo dheer soomaalidii cadan ku sugnayd markay arkeen iska horimaadka xooggan ee ingiriiska iyo cadmaawiyiinta ka dhex qarxay ayay go'aansadeen in ay dalkoodii dib ugu dhoofaan dabeedna waa tii xabadi keentakii waa tii cadan dagaalku ka dhacay waa la soo qaxay waxay cadmeedkii uu soo qaxay waxa laale wixii cadan joogay intooda boqolkiiba 90 way soo qaxeen xamar baa la isugu yimi haadraawi markii uu Soomaaliya ku soo laabtay bishii Juun ee 1967kii wuxuu saldhigtay magaalada Muqdisho halkaas oo saamayntii doorashadii madaxweynaha Soomaaliya wali ay ka sii muuqato boqolaal dad ah oo gobolada ka kala yimi oo xilalka dawladda naawilaya ayaa magaalada ku soo qulqulay jamhuuriyadda Somali Republic oo 8 sano xor ah ayuu haadraawi sameeyay riwaayadiisii labaad waa 1968kii riwaayadaas magaceedu wuxuu ahaa reer Boow yaa kule xamar baan isugu nimi riwaayadii la orjay reer Boow yaa kule oo sarbeeb ahayd 68kii ayaanu ka bilownay halka riwaayadaasi waxay haadraawi isla kaashadeen maxamed jaamac ilkacase dadkii ka baydhay inay aadmi diiday wuxuu ahaan jiray abbaanduulihii ciidamada qalabka sida xukunkana waxa uu ku qabsaday afgembi aan dhiig ku daadan 22kii Oktoobar 1969kii taladii waddanka waxaa la wareegay ciidamadii qalabka siday oo meesha ka saaray dawladdii rayidka ahayd markii kacaanku qabsaday oo ay ciidamada askartu ay yimaadeen macallimiintii ajnabiga ahayd oo waddanka joogtay way ka yaaceen oo waa ka tageen markii baahida barayaasha loo qabaa soo ifbaxday ayaa dugsigii la foole loo aqoonsaday halka soo saari doonta jiil cusub oo macallimiin ah si ay u buuxiyaan boosaskii bannaanaaday arday dugsiye sare ka baxday oo shahaadada dugsi sare haysata ayaa la foole lagu soo xereeyay oo 6 bilood si degdeg ah loo tababaro maxamed ibraahim hadraawi oo uu la foole ku yimi in tababarka 6 bilood ah uu soo qaato haadraawi markii uu albaabka la foole soo galay judhiba waxay wada jaan qaadeen oo jiibta isla heleen Siciid Saalax maxamed xaashi dhamca gaariye iyo muuse cabdi cilmi saddexdaas nin iyo haadraawi waxay la foole ka dhigteen saldhig aqooneed suugaanta hab cilmi ah lagu gorfeeyo halkaasaanu iskala jaan qaadnay suugaan wadaaga badan oo aanu anigu u aqaano fikirka dugsiga suugaaneed ee dugsiga la foole waa 1970kii haadraawi iyo koox ardaya oo dugsiga dhagax tuur ka socda ayaa soo gaadhay magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya waqtigaas bay 1970kii oo magaalada leedo Beledweyne baanu nimi halkaas waxay u tageen inay isku soo bandhigaan riwaayad wacyigelin ah oo Muqdisho iyo Baydhabo hore ay ugu soo qabteen goor habeen ah ayay riwaayad sidayaashu magaalada soo galeen aroortii markii waagii baryay haadraawi waxa uu dhuuni ama cunto u doontay makhaayad ku taalay dheega Webi Shabeelle quraacdii kadib ayuu isiri soo indhaindhee buundada liiqliiqato markii haadraawi buundada u baxay markiiba kamuu tallaabin ee bartankeeda ayuu ku hakaday si uu uga bogto bilicda bartii uu soo booqday waa yar hakadayo xagga hoose xoolaha ka cabaya dad baa ka dhaansanayo isagoo daawanaya quruxda webiga iyo dadka ku soo jarmaaday ayaa waxaa buundada barbarkeeda bari sikadiisa uga soo muuqatay inan gashaantiya oo midabkeeda maariinka ah biyo dahab la moodo haadraawi oo la ashqaraaray quruxdii gabadha ayaa eraya af carbeeda ku yidhi subxaana man khalaqaki ereygaasaan isticmaalay oo macnaheedu tahay waxaa mahad leh ilaaha ku abuuray sidaa ku abuuray gabadhii ayaa jawaabtay oo tiri waxay ugu tiri waad mahadsantahay oo carabiya
sheeko gaaban oo barasho ayaa dhex martay wuxuuna u sheegay inuu ka mid yahay abwaanno sida riwaayad 2 maalmood socon doonta. haadraawi gelinkii dambe ayuu goobtii masraxaysi soo taagay isagoo duubkii sayid maxamed xidhan. murti ka warramaysa halgankii daraawiishta ayuu habeenka haadraawi masraxa la soo istaagay. maansadii u horraysay ee riwaayadda markii uu bilaabay ayuu safkii hore ee masraxa isha la raacay. isteejkii anigoo taga markay gabadha qudheedii oo safka ugu horreeya soo fadhida. markii uu inantii isha qac ku siiyey ayuu hawraartii ku hakaday. qoladii daraawiishtaydii la socotay hoostayga gujinaysaa intaa dee hadal. geeraarkii uu masraxa ugu talagalay ayuu maskaxdiisii ka waayey. baladba geeraarkii aad 10 habeen akhriyaysa aad adigu aliftay baladba hel. kadib fagaarihii riwaayadda ayuu ka baxay isagoo ku doodayay inuu xanuunsanayo daqiiqad ka horse uu caafimaad qabay. dabadeetana si degdegaad meeshii uga soo daatay waa leex maxaa kugu dhaco waan xanuunsanaya. inantii buundada ay isku arkeen ee beerlula ayaa ka taba timi iyada oo malahayga dhaaday in dhibaatada haadraawi haleesha ay dhankeeda ka timi. si kaftan leh ayay ugu tiri markii dambe ay tuwaxtay haye sayid maxamed cabdilla xasan iska war sayidku marrag sidaas u dharka u qaadan jiray macaankaas adigu shaaraankaasoo. habeenkii labaad markii riwaayaddii dhammaatay ayay gabadhii is arkeen. wuxuu u sheegay in habeen saddexaad ay riwaayadda dhigi doonaan. subaxii markii waagii baryey wax walbaa way isbeddeleen. taliyihii ayaa ku wargeliyey haadraawi iyo raggiisii inay safar dhanka muqdisho ay isu diyaariyaan. sidaas ayuuna haadraawi safar degdeg leh muqdisho ugu baxay isagoo aan indhahaba saarin inantii beerlula ee ay ballansanaayeen. subaxdii baa la yidhi waa la baxayaa waxaa lagu noqonayaa xamar ilaa xamar baanu ardayda ka keennay. anna waxaa gabadhii baan ku maqnahay gabadhiibaa yaa qalbigayga gashay. waxaan war balaynu 2-3 maalmood aan meesha sii joogno. nin baan watay digteetar oo cali dheere la odhan jiray wuxuu may waynu dhaqaaqaynaa. anigoo inantii aan dib u arkin ayaana baabuurkii fura wata heesti maaraysa soo baabuur lalayo haad baa la moodo faranaya buurdheer isma odhan ka boodo naftaas uma biimayn. markii ay muqdisho ku laabteen ayuu xasuusta dib u celiyey. wuxuu qalbigiisa dib uga daawaday beerluladii buundada liiqliiqato ay sida kediska leh iskaga soo horbaxeen. goor barqaaho bishu ay 8 tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin. heestaasi markii ay suuqa soo gashay waxaa cirka isku shareeray magicii haadraawi. kadibna labadii heesood ee isu jawaabayey ee hudhud iyo haatuf ee jacaylkii cilmi bowdhari ayuu soo saaray. isla wakhtigaasna wuxuu haadraawi alifay oo soo saaray heestan. ma lagu qoray weli dhuux ma loo shubay qofna saanta dhabarkiyo mawdheegay ficedhaha. gurigii xaliimo waxaa albaabka soo garaacay fariinsida waaye dhambaal ka wada nin suudaani ah. waraaqdii ayay furtay saawaa sadaro farcas ku qoran oo af carbeed ah. waa dhambaal jacayl oo dhanka suudaan uu ka soo diray nin codka dahabiga ah ee magool uu madax maray. haadraawi oo cadan 15 sano ku noolaa af carbeedkana aad u yaqaana ayay magool dhambaalkii u dhiibtay. waxay tidhi bal waraaqdan iyo akhri. waraaqdu far carabi bay ku qoran tahay qalin cas bay ku qoran tahay. haadraawi markii uu dhuuxay warkii warqadda ku qornaa ayuu ku yidhi magoolaykani waa dhambaal jacayl oo suudaankaa soo gaadhay. kadibna xogtii xaashida ku xardhanayd ayuu u sii akhriyey. ninka waraaqda soo qoray dalkaa suudaan ka soo qoray wuxuu yidhi magoolay ma rumaysanaysaa inaan xididadayda mid daluushay oo aan dhiig ka soo qaaday oo aan qalin ku shubay oo aan kadibna waraaqda kugu soo qoray. cajiib hadda waxba ku dardari maayo
xaliimo khaliifna way nooshahay runtii waa sidii ay sheekadu galabtaas ay u dhacday. heesaha kale ee bilowgii 70aadkii Hadraawi uu soo saaray waxaa ka mid ahaa نفتوى أمانو قفنا لما إلاوي nacabkay wuxuu weli degaa duulle iyo hawdi NFD ninkii doonayo daabcad loo tumaye oo wakhdawiyadii laga xidhiyo dayrka lagu gooye toddobaatanaadkii hal-abuurka Hadraawi wuxuu ahaa sanooyinkii uu hawada sare heehaabayey waddanka maanta loo yaqaano Vietnam 1970aadkii waxaa ka soconaya dagaallo xooggan oo ay kula jiraan waddanka Maraykanka si ay haddaba halgankooda taageero ugu helaan waxay wafdi u diri jireen waddamada caalamka 1970kii Soomaaliya markii ay yimaadeen si weyn ayaa loo soo dhaweeyey Hadraawi waxa uu ka mid ahaa dadkii wafdiga soo dhaweeyey wuxuuna ku soo dhaweeyey gabaygiisa caanka ah ee Galaangal ee ereyadiisa ay ka mid yihiin nimayahow gadoodiga bartiya galow la soo jeedka nimayahow habeenkii gudee guura bahaleeyey nimayahow gadiidkii socdee meel hargeli waayey nimayahow sariir lagu gam iyo gogol ka dheeraaday haatanna aynu dib ugu laabanno kuliyaddii la foole bilowgii 70aadkii Soomaaliya waxaa ku soo laabtay aqoon-yahano Ruushka, Talyaaniga, Ingiriiska, Maraykanka iyo Carabaha wax ku soo bartay oo fikrado isburinaya bulshadii Soomaaliyeed la dhex yimi aqoon-yahankaasi mid walba wuxuu ku dadaalayay inuu meel mariyo aragtida iyo afka waddankii wax ku soo bartay kadibna hardan iyo loolan adag ayaa ka dhex xaloosmay indheergaradkii dibadaha wax ku soo bartay doodoodiina waxay timi kuliyaddii la foole halkaasoo Hadraawi, Siciid Saalax, Gaariya iyo Muuse Cabdi ay wadajir u abaabuleen riwaayad ragga ka warramaysa oo magaceedu yahay Aqoon iyo Afkarad. telefoonanu joogno riwaayadda Aqoon iyo Afkaradna anigu keli kuma ahayn rag baanu wadaagnay aniga ninkaleeda Maxamed Xaashi Lama Siciid Saalax Axmed ninkaleeda Muuse Cabdi Cilmiisna waa mutallahu lahu rag ayagaasaanu abaabulay oo la foole jooga ninkuu halku ka yimi buu daafacay inna ruushku ka imaanay ku inna Talyaaniga inna Ingiriiska marka arrintii way kala jiitay riwaayadii xisaabay kicisay tabeedna muddo bay halkaa ka socotay markii dambena waa la qaado waddanka oo baa la soo mariyay riwaayadda Aqoon iyo Afkarad mid ka mid ah heesaha ugu caansan waa tan tiraahdaa waan soo socdaa waxna waan sida labadhi ujeeddada riwaayadda ay ugu jirtay Siciid Saalax inoo sharxo riwaayadda waxay uga mid ahayd dadkii aqoon-yahaniinta dibadda wax ku baratay mid maqnaa ayaa soo tebinayay oo gabadhii kalgacalka daneed uu u hayay oo waddanka joogtay u sheegayay inuu soo socdo waxna sido aqoon-yahankii soo socday markii uu arlada Soomaaliyeed ku soo laabtay waxaa laga felayay samata bixin iyo aragtisan waxaa loo qaatay indhihii ummaddu ay wax ku arki lahayd waxaa la mooday curcurkii lagu jiray dayixii iftiimin lahaa heestaasi waxay ku jirtay riwaayadda Aqoon iyo Afkarad heesaha kale ee ku jirayna waxaa ka mid ahaa hees kale oo riwaayadda ku jirta ayaa iyaduna leh
dhaxalkii ahaadee dhagar qabe riwaayadaas oo 1972 soo baxday mid ka mid ah heesaha ugu caansan ayaa dhahaysa dhammaan heesaha sheekada ku jirayba waxaa wada sameeyey maxamed ibraahim warsame hadraawi riwaayadda aqoon iyo afgarad sida aad soo maqasheen waxaa ku jirtay heesta saxarla oo beyd ka mid ihi uu leeyahay waan soo socdaa kowdii waxna waan sidaa labadhi cabdi aadan qays oo jabuuti jooga markuu heestaa maqlay ayuu ku soo jawaabay iyaduu ka soo jawaabay buu ka jawaabo wuxuu yidhi ninka soo socda uu joog waxaad soo sidana celi sidaasna waxaa ku iba furmay maansooyinka taxanaha ah ee silsiladii siinley ee abwaanada badani ka qayb qaateen halabuuradii beel kastaba ha joogay kuwii xamar joogay iyo kuwii barkaa joogay halkaan joognaba halabuur qaar baa jabuuti ka soo diray qaar baa dalka ka soo diray qaar baa dibadaha kale ka soo diray baashii waa lagu baraarugayo dabeetana silsilad dad badan oo ilaa 20 qof ay ka qayb galeen 1973 hadraawi waxa uu alifay riwaayadiisii tawaawac taasoo dareen gelisay towradii 21 Oktoobar oo horeba u saluugtay silsiladii siinleyda riwaayadan oo aan masraxa iman waxaa ku jiray maansooyin sarbeeb ah oo bulshadu u fasiratay kacaandiid kadibna maxamed siyaad barre ayaa hadraawi u yeedhay kuna yidhi wuxuu yidhi waxaan kuugu yeedhay isagoo fadhiya madaxtooyadiisii waxaan kuugu yeedhay maxaa wax kasta oo aad adigu tiriso xaggayga loogula soo kacaya annaga loogu adeegsadaa hadraawi oo isdifaacaya ayaana hadalkii qaatay oo yidhi waxaan anigu mar haddaanan anigu qallooca lahayn cid kale oo jirta ay oo iga dhex qaatay ay iyadu macnahay doonaysa u samaysay dee anigu dembi ma lihi kulankaasi markii uu dhammaaday waxaa suuqa soo galay maanso ku jirta riwaayadda tawaawac oo erayadeeda ay ka mid ahaayeen waqti yarka bacda waxaa soo baxday hal la qalaydaa lagu soo qamaamo qalalaasii baa niba qodob haleelo laba waliba qaybteed iyo weligay cad quureed ana qaadan maayo qalanjada faraha dheer wax la qaybsan maayo si baa loo geeyay waxaa u qaatay inaan kulankii aanu kulannay aan isaga kulay weligay cad quureed adiga kaa qaadan maayo kadib maxaa dhacay dabeedna taabay saq dhexe la yimi anigu xamar jooga la foolaan joogay gurigii baa la igu garaacay ciidan baa soo galay xerada waa baara 11 meelaha habeenimo ciidankaas ninkii hogaaminayay ayaa hadraawi ku yidhi runtaan kuu sheegayaa waa ku xidhaynaaye guriga wixii kaa yaalla soo qaado 11 Noofembar 1973 degmada qasax dheere waxaa loo dhaadhiciyey maxamed ibraahim warsame hadraawi halkaas oo uu ku xidhnaa ilaa horraantii bishii Abriil ee 1978 muddada 5 sano ah ee abwaanku halkaa ku xidhnaa wuxuu tiriyey maansooyin tiro badan oo ay ka mid ahaayeen ka baalcad haddaad maqasho hal abuur maansada la yidhaahdo hablaha geeska Afrika xamarey mandhawadbaa la yidhaahdo adigu ilaa 10 maanso markii uu xabsiga ka soo baxay waxa uu ka mid noqday maamulka akaademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed watadeelay baa bilaabatay adiga gaariya horta kaliya haydoo dhawad ma silsilad ma qorinaha bishii December 1979 waxaa Soomaaliya ka curatay silsiladii deeleyda ee uu dah furay gaariye taasoo hadraawina noqday qofkii koowaad ee taxanaha deeleyda tix jawaabah ku darsada tii koowaad gaariya lahaa tii labaadna aniga lahaa dabeedna waa tii faaftay waa tii ilaa iyo 30 hal abuur ay ka qabgaleen silsilada la magac baxday deeleyda waa tii markaa cirka isku shareertay halkii la doonayay markay gaadhay ay joogsatay xabsigii qansax dheere kadib maansooyinka hadraawi helun cusub ayay raaceen wuxuu markan bilaabay tixo guubaabo iyo kicin ah oo kacaandiid ah haddaanan dhawaaqa hirayda wirayda hayaay ka kacayda jihaadka hargaysa barbaartu hagaysa haweenka gadooday ka qaybgelin hawsha
horaantii bishii May 1982 ayuuna si rasmiya uga mid noqday jabhadii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM ee saldhigeedu ahaa dalka Itoobiya. waxaan joogay meel koona ah oo baari la yiraahdo waa triangle-ka calanka Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliya dhexdooda markaas anigu waan joogay ciidanka halka fadhiya anigu madax ka ahaa. jabadihii tirada badnaa ee la dagaalamayay dawladdii uu madaxda ka ahaa Maxamed Siyaad Barre ma lahayn yool siyaasadeed oo muuqda. inkastoo ay jihooyin badan jamhuuriyadda ka soo weerareen haddana jabhaduhu jilib iyo hayfayb ayay ahaayeen kuwa uu kala fadhiyey. warfidiyihii Siciid Faarax oo BBC-da ka howlgeli jiray ayaa Haadraawi weydiiyey sagaashamaadkii su'aashan. marka waxaad qabtaa in wax kastaba ha dhaceen mucaaradku suudoona ha u qaybsanaado maanta ay jirto rajo la isugu yimaado oo aakhirka lagu sameeyo dawlad dimuqraadi waxa weeyaan maalin dhow ayaa ballan jira inay kulmaan haddii ilaahay ka dhigo jabhadahan hubaystani ka wada hadlaan arrin ama iskaashi ama midnimo ama wixii la mid ah hadday taasi bilaabatana mar haddii maanta gobol xaad wanaagsani dhacay oo maanta shakiyo fara badan iyo maaragtay nacay fara badan uu baxay dagaalkani waa ka dadka walaaleeya isu keena marka anigu taasaan ka rajo qabaa in maaragtay maalin dhow ay wax badan isuuroobayaan maaragtay inay jabhaduhu ku heshiyaan laftooda. sanooyinkii Haadraawi SNM uu ka mid ahaa maansooyinka uu tiriyey waxaa ugu caansan maansada sirta nolosha. marka xiga sabow heedhe tala sibiq dhaqaaqeeda sooftaran habowgeeda salfudeydka hoogiisa balse laanka fuulaalan iyo sagabta heesaysan dhulka saas u jeedaali sidan iyo sidaas fiiri sidan iyo gadaaldiyo bal afarta jihaba bal hadda eeg waxaa ka dhacaya raqda solan lafaha soogan bal su'aal u celi maydkan sababtuu u go'ay raadi. muddo dheer oo Haadraawi SNM ka mid ahaa ugu dambayntii 1990kii ayuu soo saaray gabaygiisii gudgude. xaajada gudraac ale haddii loo gabbala eego kol haddaan garaad lagala hadhin kala basheegada inta maan ku gaajisay guli waaweli macna kuma jiro nidaamka haddii la burburiyo oo aan kii bedelayay oo dhisan oo habaysan aanu dhisnayn. Haadraawi wixii intaa ka dambeeyay waxa uu u guuray qurbaha isaga oo deegaanka ugu weyna ka dhigtay waddanka Ingiriiska. adiga suugaantaydu marba waqtiga jiray la socotaa 70kii iyo 80kii waa laba waqti kala oo mid walba wuxuu leeyahay nooc waji gooniyo iyo dhaqan iyo xaalad gooniya qofka mar walba waxa tira waqtiga jooga waa kuma waxa dhacayaa waa maxay. Ingiriiska inta uu joogay hal abuurkii Haadraawi isbedel weyn ayaa ku dhacay. raadkii suugaantiisu 30 sano ay raacaysay ayuu ka weecday oo waqtiga iyo nolosha ayuu waraystay oo weydiiyey kumanaan su'aalood isaga oo raadinaya runta iyo xaqiiqada noloshu waxay tahay. anigu wadada haysta qaadka iyo jacaylka iyo digdigtaas baa ilaaha raxmaanka iyo hadaayada igu soo rogay. tabahuwa baa igu horeysay 800 oo beyd. suugaantiisa cusub ee wada ashqaraarka ah ee falsafadu ka buuxdo wuxuu ku daahfuray maansadiisa caanka ah ee dabahuwan isagoo ku xijiyey maansada Haadraawi uu sheegay inuu ugu jecel yahay murtidiisa ee afku siran kadibna wuxuu daba dhigay maansada kale ee la yiraahdo anuunba hooyadaaya. maansooyinka saddexda ah iyo kuwa kale oo ku xilli ah dhammaan waxay ka hadlayaan dhaqanka, dhulka, diinta, dadka, dhirta, xayawaanka iyo fahanka nolosha dhabta ah iyo umuuro kale oo nolosha aadamaha meel uun ka soo gala. doofaarada aan gudnayn diinlaawaha gaalku dhalay maxay dulin faafiyeen maxay samaduudsiyeen maxay godob daaqsadeen maxay dembi xoogsadeen maxay dabar soo xardheen maxay dabin soo shaqleen dambeed maran soo asleen waxay dumiyeen aqoon ilaa dura soo taxnayd waxay damiyeen ilays u daaran qof meel lahaa waxay kala daadiyeen daryeel isu dheeli tiran naftaa hira bay legdeen ducdeeda xumdiiriyeen dambay caalin labeebiyeen dowgeedu xidhiirsanaa waxay iga soo duween jidkaan isku daawan jiray. bishii Juun 1999 ayuu Haadraawi dib ugu laabtay Hargeysa isaga oo nolosha qurbaha u arkay mid aan lagu sii noolaan karin. kadibna waxa uu Hargeysa ka bilaabay la dagaalanka haybsooca lagu hayo qaybo ka mid ah haybaha Soomaaliyeed.
wuxuu soo bandhigay maansadiisii caanka ahayd ee dhulgariir. dhanka kalena abwaanku waxa uu dadaal dheer ku bixiyey in af soomaaliga iyo suugaanta lagu dhigo jaamacadaha oo barbaarta iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed ee cusub ee soo baxaya afkooda laga haqabtiro. 2003 Haadraawi waxa uu safar dheer oo dhanka dhulka ah ku maray koonfurta Soomaaliya, safarkaas oo ku caanbaxay socdaalkii nabadda ee Haadraawi. laakiin xaydaabka ooddaasaan diidayaayo wanigii ilaa kisbaayo socday dhex maray wixii aan kari karay ku kordhiyey aan uga lahaa waxaan caddaynayay uun anigu haddii la kala go'ay inaanan go'in anigu. wuxuu abwaanku 20 sano kadib dib ugu laabtay magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ugu dambeysay 1982. waxaan doonayaa albaabla inaanu iga xirmin caalamka ilaa meeshaan halkaa mari maayo iyo qofkaan mudan maayo horta midna lama yidhaahdo. waa 2003 oo magaalada Muqdisho qabqablayaal tiro badan oo aan isu tallaabin ayaa xukuma. bilicdii magaaladu caanka ku ahaydna dagaalada sokeeye ayaa dhaawacay. Muqdisho ka sokow meelaha uu abwaanku socodka ku maray waxaa ka mid ahaa Kismaayo, Jamaame, Janaale, Jawhar iyo Balcad. waxaa kale oo uu lugta sii mariyay Dhuusamareeb, Guraceel, Gaalkacyo iyo Garoowe. kadibna Boosaaso ayaa lagu soo dhoweeyey. 14 bishii Agoosto 2003 socdaalkii nabadda Haadraawi wuxuu ku soo afjaray degmada Laascaanood, kadibna wuxuu uga sii gudbay Burco. socdaalka nabadda qaybtii labaad ayuuna ku aaday Yurub iyo waqooyiga Ameerika. 2012 wuxuu boqortooyada Holland ka helay abaalmarin caalami ah. wallahi waxaan ku baraarugay in haddii ay ka dhigo boqorada Holland go'aan ka soo baxay in la igu guddoonsiinayo abaalmarin lacag ah. garan maayo warkayga sida ay heleen iyo haddii ay ka dhigo sababaha, laakiin على كل حال waan ka mahad celiyay haddii ay ka abaalmarinta. bal warana marka lacagta ma lagu sheegay tahay lacagta horaa bay u soo direen waxay 25,000 $25,000 bay ahayd.